innaga soomaalidii hore reer baadiyaa matalan waxay rumaysnaayeen ninnimada iyo raganimadu inay tahay qofku inuu adkaado saasi daraaddeed geeljirannimadu ammaan bay ahayd ninka geeljiraa waxaa loo rabaynayay qof haraadka u adkaysta oo dagaalka u adkaysta oo geeldhaca u adkaysta oo dhib u adkaysta oo waxaasoo dhan saa daraaddeed ilmuhu markuu 18 gaadhaba geela lagu daraa kaa yar bay geeljiruhu wax walba ku raraan isagaa hadhuubka sida oo gudinta sida oo maqaarka sida oo xoolaha raacaya waxa allaaliya waxay xoola haystaan ama qalab sitaan ka ugu yar baa sida waxaasoo dhan isagoo xambaarsan oo maantoo dhan daalana xoolahana raacaya mid yaroo leega ka soo horbaxaya intaba dhigay odhanayaan oo la ulta ul inta loo dhiibo hadduu ooyo waa la dilayaa hadduu intuu ultamo uu ooyo ama laga badiyo kii weynaaye wadaad dilayo odhanaya nacasku dhaleen ragga iska celinaya waayo culture-kan baa wuxuu ku salaysnaa qof adag in la soo saaro oo abaarta iyo dagaalka iyo wax walba u adkaysanaya oo aan ibnu hunduul ahayn ceelabaystay nimaan ahayn inuu soo baxo raggi idan waxaan uga jeedaa bulshadu baahideeday ku salaysaa maxay qofka sida loo rabaynayo muxuu noqonayaa berrito waxaa jira usus nafsiyo qofka lagu rabeeyo oo ah muxuu qofku qaadi karaa dadkoo dham isku wada mid ma aha qof baa cilmiga ku fiicnaan kara qof baa farsamada ku fiican qof baa farshaxanimo ku fiican qof baa adab ku fiican ma aha un dadkoo dhami dhakhtar wada noqda inaad tidhaahdo qof baa dhiiggaba markuu arko ma taga